السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gabar ka mid ah dadka caanka ah baraha bulshada waxay soo dhigtay barteeda Facebook sawir iyadoo aan marsanin makeup ama aan isqurxinin. Gabadhii waxay soo dhigtay barteeda waxayna ku qortay ka warrama muuqaalkayga talo ka bixiya ama ka aragtay dhibta ay ku dhacday. Gabadhii waxyaabaha ay ku dhaheen waxaa ka mid ah inta badan dadka comment ka bixiyay waxay ahaayeen kuwo ka bixiyay dhaleecayn ama commenti aan wanaagsaneyn kuwaasoo ka hadlayay inay foolxun tahay inaysan wacnayn iyo muuqaalkeeda inuu foolxun yahay. Waxaana commenti gareysay 20,000 dhawaad. Dadka commentiyadaas gabadhaas ka dhiibtay markaad dib u fiiriso dhibaatada ama eedeynta ama foolxumeynta ay gabadhaas u geysteen waxa ka daran fariimaha ay halkaas u gudbiyeen taasoo ah in qofka uusan ahayn muuqaalkiisa saxda ah mid lagu qiimeeyo quruxdiisa ee ay tahay hadba sidoo asaga isugu ekaysiyo gacantiisa ha ahaato makeup ha ahaato qaliin ha ahaato sawir oo application lagu qurxiyay. taasina waxay bedeshay fahamka laga qabay quruxda iyo jamaalka Ilaahay uu umay bani aadamka. maanta waxaan ka hadlaynaa quruxda beenta ah ama aan jirin. quruxda waa waxa Ilaahay bani aadamka dhan u kala qaybiyay sida nicmooyinka kale sida cilmiga sida lacagta iyo waxyaabo kale oo Ilaahay aadanahu siiyay. sidoo kalena wuxuu ku kala duwan yahay hadba qeexitaanka iyo fahamka bulshadeed iyo deegaanada ay degan yihiin. bulshooyinka fahamka ay ka haystaan iyo qeexitaanka ay ka haystaan quruxda way kala duwan tahay. tusaale marka u soo qaato waddanka Shiinaha waxaa qurux loo yaqaanay gabadha lugteeda ay yar tahay inay qurux badan tahay. sidaas darteeda waxay isku dayi jireen gabdhaha yaryarka ah waqtiyada intaysan qaan gaarin inay lugahooda u xiraan kabab cariiri ku ah si u yareeyaan cagahooda si u lahaadaan quruxda looga raadinayo. halka wadamada Afrikaanka qaar ka mid ah ay tahay astaanta quruxda cayilka ama buurnaanta. sidaas darteeda waxay ku dadaali jireen inay gabdhahooda naaxiyaan si ay u helaan quruxda looga raadinayo. taasoo in badan oo ka mid ah bulshooyinkaas gaarsiisay heer inay siiyaan gabdhahooda dawooyin ama kaniiniyaal caafimaadka halis ku ah si ay u soo dedejiyaan helidda quruxdaas oo ah buurnaanta. taasina waxayna tusaysaa ama aan ka fahmaynaa in quruxda qeexitaankeeda iyo fahamkeeda aysan lahayn tixraac sax ah ama sugan ee ay tahay mid isku bedbedelaysa hadba thaqaafada iyo mujtamaca meesha ku nool waxay aaminsan yihiin. su-aasha isweydiinta mudana waxay tahay baraha bulshada intay soo korortay ama la sameeyey maxaa ku dhacay fahamkii bulshadeed ee hore ee ku saabsanaa quruxda. muddo aan fogeyn quruxda waxaa tusaale lagu soo qaadan jiray adduunka oo dhan boombalada Barbie ee caanka ah. sidoo kale waxaa tusaale loo soo qaadan jiray xidigaha Hollywoodka iyo dadka caanka ah. laakiin maanta baraha bulshada markay la helay waxyaabaha isbedelay waxaa ka mid ah inay noqotay social media ama baraha bulshada meel la soo bandhigo ama masrax lagu soo bandhigo quruxda iyo qofka muuqiisa taasoo ka dhigtay suuq lagu hardamo inuu qofka samaysan karo muuqaalka uu lahaan karo hadba sida uu doono. applicationada filterada la isku qurxiyo make-upka tirada badan iyo waxyaabahaas oo isku jira ee dunida maanta ku soo korortay waxay dadka siisay fahan ah inay ayagu samaysan karaan muuqaalka iyo baahiyiin inay u soo muuqdaan taasoo iska hor keentay muuqaalka dhabta ah qofka uu leeyahay iyo muuqaalka uu lahaan doono qofka markuu filter ama uu isqurxin isku sameeyo taasoo laga dhaxlayo inuu qofka isnaco ama muuqaalkiisa dhabta ah uu dhibsado. mar walbo aan diiradda saarno inaan aad u soo qurxino muuqaalkeena aan ka dhigno mid aad u wacan waxayna tusaysaa mar walba qaybaha anaga aan leenahay ee shakhsiyadeed ee Ilaahay nagu dhuumay taasoo laftirkeeda inaan aqbalno ay waajib tahay. daraasad la sameeyay ayaa lagu baarayay farqiga u dhexeeya qofka wuxuu shakhsiyadiisa iska aaminsan yahay dhanka quruxda ah iyo waxa dadka kale ay ka aaminsan yihiin. weliba dadka make-upka aad u isticmaala iyo dadka sawirradooda aad u qurxiya markay baraha bulshada soo dhigayaan. waxaa loo yeeray dhowr gabdhooda loo wacay kadibna waxaa kaloo meesha laga qaybgeliyey farshaxaniistigii iyo gabdhaha ayaa la isku xiray waxayna ka waceen telefoon
si ay u tilmaamaan ama qof walba ay u tilmaanto muuqaalkeeda ama quruxda ay iska aaminsan tahay wuuna sawiray. Sidoo kale markuu gabdhihii uu tilmaamahooda naftigooda iska bixiyeen oo sawirka uu dhameeyey ayaa waxaa loo wacay dad kale ee gabdhahaas yaqaano ayaa loo wacay si ayagana u tilmaamaan sawirna looga qaado farshaxan ahaana loo sawiro. Sawirkii markii la dhameeyey gabdhihii gabar walbo sawirkii ayada iska hadashay ee tilmaanta iska bixisay ee la sawiray iyo waxaa la isu barbar dhigay sawirkii dadka qaar ay yaqaaneen ay ka bixiyeen kadibna farshaxanista uu sawiray. Markii la is ag keenana waxaa qurux badnaatay sawirka ama lagu sameeyey tilmaamaha dadka kale, taasoo lagu fahmay ama conclusion-keeda ay noqotay in dadka sawiradooda qurxiya qurux dheeriya raadiya inay dakhliyan ama guud ahaan ay aaminsan yihiin in muuqaalkooda uusan fiicnayn ayna u baahan yihiin inay in badan qurux dheeriya samaystaan, laakiin dhabtiina ay tahay inay yihiin dadka la mid ah ee aan ceeb lahayn ee dadka caadiga la mid yihiin quruxda Ilaahay siina haystaan. Bobby Baker oo ah qoraa ayaa qortay buug la dhahayo The Beauty Experiment ama tijaabada quruxda, waxayna uga hadlaysay tijaabo ay laftirkeeda isku samaysay ugana hadlaysay sida loo noolaan karo iyadoo aan isqurxinin ama qurux gacan ku samaysa la raadinin. Muddo dheer ayayna waxay isku daysay inay u noolaato nolol caadi ah iyadoo aan make-up marsanin isqurxin dheerina sameynin. Waxayna ka qortay tijaabadeeda buuggaas The Beauty Experiment. Waxyaabaha ay sheegtay waxaa ka mid ah buuggeeda ay ku sheegtay in raadinta zaa'idka ah ay xad-dhaafka ah ee quruxda lagu raadiyo ee waqti badan la geliyo lacag lagu bixiyo ay keenayso inay ku yaraato qofka kalsoonida ama farxadda. Sababtuna waxay tahay wuxuu aaminsan yahay mar walba isku qurxinayo qofka in muuqaalka uu Ilaahay u uumay ama asalkiisa ah inuu liito kadibna uu baahan yahay inuu kor u sii qaado. Quruxda hadda aan ka hadalnay dabcan kuma koobna hablaha, waxaa kaloo ku jira wiilasha. Waxaa sanooyinkii dambe aad u shaabaxay qoraah dhehayso wiilka ay gabdhaha dhan ay wada doondoonayaan, taasoo noqotay qoraah ku shaabadaysan qulubta ragga ama wiilasha. Saas darteeda waxay waqti badan geliyaan inay si fiican u soo muuqdaan, inay gym galaan, inay waqti badan jirkooda geliyaan si ay u noqdaan kuwa ay habluhu wada rabaan. Joornaalka The Guardian la yiraahdo ayaa wuxuu daraasayay in dhalinyaro badan ay ku xiran yihiin ama ay tagaan mar walba xarumaha caafimaadka ayagoo ka sheeganayo xanuuno la xiriira dheefshiidka iyo waxyaabo la xiriira. Sababtuna waxay tahay in dhalinyaradu ay waqti badan geliyaan ama caafimaadkooda halis geliyaan si ay iskaga reebaan cuntada ama diet-ka. Saas darteeda dhibaato caafimaad ku timaado ayagoo raadinayo quruxdii la wada rabay, taasoo ah jir dhisan, muuqaal still diyaarsan oo ay gabdhuhu wada jecel yihiin. Intaas oo dhan haddaan soo duuduubno, quruxda la sheegayo waa quruxda qof walba uu Ilaahay u uumay, siduu Ilaahay u doortay uu yahay ugu quruxsan yahay, inuu aqbalana ay tahay kalsooni iyo farxad lagu helayo. Xalqadeena maanta halkaas ayaan kusoo gunaanadayaa. Waxaan idinku ogahay sidaas iyo nabadgelyo. Xalqad kale intaan ka gaarayn waxaan idin leeyahay hada wasalaam. Waxaan rajaynayaa inaad muuqaalka hadduu isu soo gaaro aad sii gudbisaan wixii aragtidiina ahna aad ii reebtaan. Waad mahadsantihiin.